Somali land حفلة sida loo badbaadinayo Soomaali wada jirka ummadda Soomaalida sida loo badbaadinayo inaan tacabka galiyay 20 sano iyo in ka badan ba 30 years at least ila inta PhD ga qoray markaan qoray anigu marna daminta dhexda ka manqanin oo uma qaadan inay tahay khasaare waxa se qalbi jib ugu raday natiijadii ka soo baxday inay suurto gali kari weeyay taa waan aad baan ugu xumaaday oo deen u arkay inay tahay qoomamo weey laakiin dadaalku waa waajib dadka Soomaalida ay ku lahaayeen inaan istaago on geliyo wixii aan taag leeyahay sida loo noolaynayo in dib loo soo celiyo qarannimadii ummadda Soomaalida wada jirta Soomaalida jawaabtii horta taas ahayd kamana regretna kama yihi laakiin in la fahmi waayay aniga iyo xisbigii heel qaran la fahmi waayay dadkii baarlamaanka ku jiray ay la fahmi waayeen إليتك سياسة ورقرقتي ساوث سوماليا أي نلف فهم وين ذلك عادي جوا حلا جاي بحدي أنه جاري لهين الجرال لهين أو كعوين السين لهين لكن ده سيدا سومالي لانده كلامها ميلاد ذلك عادي جا هاد كليس لو بقوليش إنه تدوات نقف ميل وصو أوديو سيدا لو كاننا عادي عاد مستقما صح بدنور يضدن تود يرون إريالي تا أنا قد عاد بان يعني وقوم الموضوع لكن marna ma habeen qura xumaanay gamay qaban iyo regret inaan tacab 30 sanadood galiyay inaan wadankii Soomaaliyeed iyadoo la wada jiro oo la wada joogo inaan soo nooleyn karo anigii wixii nala socda taas waxa ay wax laga filayay aniguna aan ogolaa inaan dadaalkayga la imaado haddaan taas dib ugu laabto maadaama aad ku bixisay Soomaali weyn muddo ka badan 20 sano aad tirina kama nashalaynin tacabiga khasaareyna ma ahan haddana aad taageersantahay hortaaganta hormuud tahay Somaliland maxaa bedelay maxaa isbedelay waxa isbedelay waxaan saan kugu sheegay wala nala garan waay muqdisho aan tagnay xisbi dhanbaan sameynay oo dad wanaagsan oo kartilo dhalinyaro badan ay ku jiraan baaqid ballaaran baan sameynay xamar baanu geynay baarlamaankii baanu geynay wala nala garan waay wala nala fahmi waay markaas ma waxaad ka socotay Somaliland marka aad leedahay waa nala garan waay mise maya waxaan ka socday Soomaali oo dhan xisbi oo Soomaali oo dhan u furan oo ujeedadiisuna ay tahay in la isku hayo labada wadan laga shaqeeyo sida dhaqaalihii iyo nabadgelyadii iyo horumarkii loo soo nooleynayo iyadoo la wada jiro ayaanu ahay markii la nala garan waayay in arintii sii guda galay xitaa la igu yiri haddaad doonayso adigu inaad meel madax ka noqoto wax maamusho mad Hargeysa tagti halkani meeshaadi maahe laga yiri meel badan waxay markaa ii cadaatay in haddaad tahay qof ka yimid Somaliland haddaad oo waliba dadka communities ka ee Somaliland haddaad tahay kartidaadu intay doonto ha noqoto baaqidaadu intay sanadood doonto ha soo jirto in waxa aad sugtaa uun ay tahay hamba siyaasadeed inaad sugto daanu hamba siyaasadeed inaan qaato waan diiday haddaan wadankii xukunkiisii ku guuleysan waayay inaan cod ka helo baarlamaankiisi aan u badbaadiyo on ka saxo meelaha aan doonayay inaan ka saxo wadanka burburka dhacay marka waxa igu kaliftay inaan dee fahmo qadiyada dadkii aan ka imid reer Somaliland ay 20 sanadood ku baaqayeen inaan xanuunkoogii dib u fahmo ayay igu kaliftay sidaas dabeetana igu tustay inaan iyagii la sheekaysto inaan wadankii tago inaan dadkii caadiga ahaa gees ilaa gees soo arko waxay ku siman yihiin maskaxdooda waxa ku jira qalbigooda waxa ku jira waxana soo arkay dad
u heegan inay xaqa ay wataan sidaa ku wadaan dhaqaalaha ay dhisaan noloshii ay hagaajistaan adduunyada ay ka qayb galaan walaalaha kale soomaaliyeed ee soomaaliya ku noolina haddii ay la yimaadaan mustaqbalka dee wax caqliga geli karo laga wada hadli karo dan maxaan ku dhahay labada wadanoo darisa laga wada hadli karo albaabkaasi wuu furan yahay maskaxdaasuna way furan tahay laakiin aan la sugin ya in aan la sugin tahay ee laga galo hawshii qaran dhis ee somaliland taasaan soo arkay dadkii caadiga ahaa baan soo wareystay daabeedihii yaryaraabaan dadkoodii ku soo wareystay I saw the spirit of the people markaa deeta waxay la noqotay labadii markaan isku daray taariikhda ii furan inay tahay markaa dee inaan ka qayb galo somaliland sidii inay baraadho oo ay wax noqoto waxay haysata ay sii wanaagsanaato inaan wax ku biirin haddii aan microfoonka ku wareejiyo xaashi ismaaciil xaashi marka hore soo dhawow maadaama aad tahay chairmanka communityga reer somaliland degan Columbus ama North America marka ugu horeysa aad ayaa mahadsantahay soo timaashaano midda kale to maxaa idinku kalifay inaa shirkaan oo kale qabataan ama eventigan qaban qaabisaan ku qabataan gaar ahaan Columbus Ohio horta anigu reer Columbus waan ahaan jiray laakiin marka Virginia ka yimi wana guud ahaan community chairman u ahay Somaliland ee North America wax kale ma ahayn Ahmed wuxuu ka mid yahay sidaan meesha ka sheegay markii hore hordhacayay waa international professor waa nin qiimo badan oo taalimeed iyo waa aragnimo intaba leh waa nin aan in badan dadkii markaa xanuunka Somaliland meel ku sugan kaaga soo qabanaya dareensana ay in badan sugayeen inuu la arko ama uu horgalo ama uu hogaamiyo qadiyada Somaliland farxadii iyo isfahamkii Ahmed iyo jaaliyada dhexmaray ayuu badan ka mid tahay kowna maaha meel kastoo adduunka bay ka soo dhacday London baa ugu dambeysay ma malaynaya aan sahay tani Ohio Mareykan baa imka ugu horeysay Netherlands Mareykan baa ugu horeysay event baa ku xigi doona Virginia hadii la yiraahdo mid Minneapolis ku xigi doona oo ka duwanaanaya kuwii Ahmed ka qayb gali jiray Ahmed Soomaali weyn buu ku baaqay khaladna maaha Soomaali weyn waajib dadka inta iyadu ku soo kortay iyo intii wax baratay intii wax ku baratay intii cashuurteeda cuntada saaran bay ahayd laakiin Soomaali weyn qof aan doonin marka madaxa isla gashaan sharki Soomaali weyn iska sita hada ruux doona saaduguna tayada ka raacday marka Somaliland qadiyadeeda promotion horumarinteeda iyo faafinteeda ayaan Ahmed ka siinahay dadka dareenkooda waa darkiisay marka Ahmed anaga farxad bay noo tahay Ahmed oo maanta Somaliland hor socda waxay noola mid tahay aqoonsiga la raadinayay in kamid oo la helay haddii aan ku noqdo Professor Samatar shirkii lagu qabtay Istanbul oo ka dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay dhamaadkiisii dabiiqadiisii maxay kula tahay qodobadii ka soo baxay iyo maxaa kala leedahay in Somaliland iyo Soomaaliya ay hadiye jeer wada hadlaan waa waajib waana loo baahan yahay darisnimada keenaysa taariikhdii la soo wada maray isku keen martay ayaa keenaysa mustaqbalka challengeskiisa ayaa keenaya marka wada hadaladu had iyo jeer way habboon yihiin oo la isfahmo sida loo wada noolaanayo laakiin marka dambe waxay ku xidhan tahay midhaha ka soo baxaya inay yar yihiin inay weyn yihiin waxay ku xidhan tahay qodobada laga hadlaya waxay yihiin ajenduhu wuxuu yahay iyo dadka ka hadlaya mandate-ka ay haystaan iyo dadka ay yihiin ayay ku xidhan tahay marka anigu halkan imika waxaan ka odhan karaa wada hadaladaasi ha socdaan laakiin haddii aynu nahay reer Somaliland waa inaynu haysanaa strategic thinking baan anagu ku magacaabo ya shirarka maxaynu uga qayb galaynaa maxaynu ka raadinaynaa ya maxaan ku rahay aynu qaadan karnaa guul aynu qaadan karnaa maxaynu qaadan karnaa inay khasaare yihiin waxa inaynu isla ogaado dawladda iyo dadkuna ay isla ogaadaan inteeda badan oo dee la wada socdo waxay la tahay aad bay u habboon tahay laakiin dee wada hadalka darisku inay wada hadlaan oo weliba daris aad wax iskugu darsaday la yahay sida la isku fahmayo loo wada noolaanayo aan waxaan qabaa inay hadii jar xalaal tahay hadda dhow ayaa ka timid wadankii gaar ahaan Somaliland waxaa soo aragtay waxaana tiri markii doorashada dhaceysay 2012 naxmar ayaa tagtay marka maxay ku kala duwan yihiin koonfurta iyo waqooyiga deewatan halka shirka sheegay caawa wax badan oo aynan imka tiradeeda la gali karin ayay ku kala duwan yihiin dadku waxay qabsadeen dawladnimadu waxay tahay sida loo dhiso qarannimadu waxay tahay sida loo adkeeyo nabadgelyadu waxay tahay sida loo abuuro ee loo badbaadiyo ee loo ballaariyo
dimuqraadinimadu waxay tahay gees to gees ama dadka maskaxdooda iyo qalbigooda uu furan yahay hadli karaan oo ay dood geysan karaan qofku ciduu doono inuu la sheekaysan karo oo ay association samaysan karaan jaraa'idka iyo arrimahaas inay furan yihiin oo wax walba dood cusub ay miiska taallaanba tii hore lagu noqonayo yaa soo arkay somaliland dadkayga siyaasadeeda waxay noqotay mid soo bislaanaysa nabadgelyadaa ku tusaysa doodaha socdaa ku tusaya dowladda raadkeygood meel walba ku arkayso ayaa ku tusaysa arrimaha caynkaas soomaaliyana dee ilaa imika arrimahaasi way xidhan yihiin oo dee waxa xidhay ammaankii oo weli dhibaato ku jirto waata madaxweynaha la isku dayay in gurigiisii lagu dilo waxaa dhacaysa maxaan ku idhaahaye inaan dadku waddanku isku gudbi karin oo aan caadi loo kala socon karin iska daa doorashooyin waddankao dhan ee dadku ay ka qayb galaan ma jirto soomaaliya marka waxyaaba badan baa lagu kala duwan yahay laakiin wax badanna waa iskaga mid oo xaggii dhaqaalaha iyo noloshii qofka caadiga ahaa biyo cabkii caafimaadkii shaqadii waa la iskaga dhow yahay oo dee laba wadan oo dagaal la soo maray dhibaatooyin badan ay soo mareen weeyi waa la iskaga dhow yahay arrimaha laakiin reer somaliland si aad moodo inay fahmo dheeraad ay ku jirto geesinimo dheeraadi ay ku jirto isku kalsooni dheeraadi ay ku jirto ayaad moodaa iyagu inay la soo baxeen de waana midhahaygii waa la arkaya 20 sannadood ee imika waddanka u jira haddii aan ku celiyo xaashi ismaaciil waxaa tiri shirar kale ayaa la qaban doonaa Jamila, shirarka one last question, that's it. We're gonna close it. okay shirarka la qaban doono waxaan tiri waxaa lagu qaban doonaa gobollo kala duwan ee America ka mid ah shirarkaas maxay tahay waxa la yaab laga doono maxaad damacsantiin inaad soo saari kartaan ama aad qabanaysaan like accomplishmentiga arabtaan inaad qabataan aad ka gaartaan guusheeda ugu dambaysa nimka kasina horta waa aqoonsi shirarkuna dadku hadduu hadiyo goor wada hadlo oo u tashado mar walba la tashadaba waxbaa ka soo baxa horumar baa laga sii gaadhaa marka waxunbay daba socotaa qadiyadda somaliland sii riixisteeda annaga waxaan u aragnaa halka walaalahaya ay u arkaan inay dowlad haystaan hadiyo goor ay ku halqabsadaan obama ay aqoonsaday hebel baa ay aqoonsaday annaga waxaan u aragnaa inaanu dhisayno dowlad habbi kuma nihin waanu ku faraxsanayn nabadgelya jira dhaqaale structure dowlad waxyaaba badan baa jira laakiin waxaan u aragnaa in hawl dheeraad sidii caawixta barofesorka ka sanqalinayay inay bilow noo tahay oo gurigii seeskoon baanu qodnay dabadna sidaanu u dhisi lahay marka si aanu u dhisnay dawaanaanu wada hadalnay ibnaadamka hadalku isku fahmaa waxaa la xooluhu horta isku gartaan dadkuna hadalkuun bay ka mid tahay shirarkaas waanu wadaynaa ilaa dee inta ibnaadamku jira inu isleena meel baa gaadheen waanu wadaynaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka interviewga gaarka aan caawa ka qaadayna professor Samatar iyo Mr. Xaashi Ismaaciil aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal waa inoo aragti dambe oo xiiso leh